الله يو نينكي قرسدو آدن كو قوليسن قريب باس عير إيا كاقاد قوبة تالمران قبلا ويلا آنيد إله قرد كو ساري قربود إيا عروري رشاكو مقر قاراني قركو كوما قبطان وويلاشيد قوغلها قوقسينين قافها رقاد قيبستان جيدك كو عيلي رق نينكي هنقريد قلو منيدو كا قورتي قاني قال تاغير إيا قمسكو كالليحي جيدك إيا حينيها شركة أو قرنا الله إنا لله هبار وينايا واجي روحا اللي رهدا علماء إيو أبوانينتا هباركودو بقولو كعي جري وانا لسكي إلالين جري ninkii labadaas isku raacana waaba ka sii xag jiray oo garanaysan maalin maalmaha kamida ba waxa la yiri macallin dadka quraanka bari jiray oo quraanka dadka si fiican u bari jiray baabanin aababa wuxuu u keensaday wiilkiisa si uu quraanka u baro waxa lagu leeyahay ilmo walba oo quraanka u dhameeyay wuxuu ka qaadan jiray qaalin geel ah adu wixii qaalin geel ah u sareyso uu ka qaadan jiray ninku macallinku waa konton jir aan weligiis guursan aabbahaas markuu wiilka u keensaday buu wuxuu ballan kula galay wiilka quraanka si fiican hadii uu u baro intay doonto ku qaadatee inuu laba gabdhood oo u jooga mid madaxa banaan siin doono oo yar inkii rajadii buu muddo badan deenaawilayay ballanqaadka isagoo ku taagan garanaysan nin doobo konton jir ah oo gabar loo ballan qaaday wiilkii buu ku tacabeelay quraankii si fiican u baray wax walba juudi usan ardada kale galin buu galiyay maadaama ballanqaadkiisu sareeyay markuu xilliga dhamaaday muddo badan bay ku qaadatay xilligii markuu dhamaaday buu soo taagay odaygii buu yimid aduu ka wareegay talada waa ku fududaaday gabadhii waa ka laabtay waxa soo yiraahday ninkii waa aduu haduu xoogaa doodii waa iska soo tagay haduu soo tagay maalintii dambe nin soconaya u yimaaday wuxuu ku yiri gabadha sababta lagu diiday baa waxa ahayd aabuhu inuu ninkaga bedeshay gabadhan geel badan maadaama adigu aadan xoolo haysan xoolo badan buu gabadhan adigu ku qaatay oo ku bedeshay muddo xoolihii baa la isku fahmi lahaa ugu dambeyn maanta xoolihii la isku fahmay gabadha marka galabta waa la bixinayaa buu yiraahday odaygii waa sii taagay meel gabadhii iyo golihii gabadha lagu bixinayay oo dadkii reerkeeda fahmay cid walba joogta odayaasha magaalada wixii dhan joogan buu intuu bartanka meel dhexda dadku wada maqlayaan u istaagay buu habaarkaas buu ku siiyay waa habaar aad u culculus waa garanaysaan حتى نينكي guursada kaliya maaha حتى wuxuu habaaray ninkii gabadha hunguri ka galo manidu ka guurtay wasaga leh waa habaar culus dadkii markuu sa u dhameeyay habaarkii aniga hadda waxba iga kala maqmaqan gabayga ima dhameystirna uu ka badnaa inta habaar wuxuu leeyahay حتى xoolaha gaar uma soofaan iyo xasaas ku jirtay xoolaha yeelan amal dadkii waa lagu kala cararay meeshii waxa ku yiraahday wax jooga la waayay gabadhii waxa la yiraahdaa lama guursan iyada aan la guursan oo gabowdiba cid ugu hor dambeysay nin walba habaarkaas ka baqay waaga horena uu kici jiray habaarku abwaanka iyo culimadu ninka labadaas isu raacdan waa ka sii xag jira oo ninka labadaas isku raacay gabadhu waa laga cararay meesha lagu kala yaacay habaarka tiriyay